waxaan halkan kelmad ka siinayaa mas'uul ka socda shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Hormuud waxaan leeyahay soo dhawo madkay. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدك ولا مقلموه marka hore waxaan u mahad celinayaa iskuulka salaam oo nagu casuumay xafladan iyo qalinjibiyaasha dufcadii lixaad ee Thimaarul Wadan oo nagu casuumay xafladan qiimaha badan. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. intaas kadib marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha kala duwan. nin walbana wuxuu ku salaaman yahay mansabkiisa iyo magac uu ku fadhiyo meeshaan. intaas kadib waxaan rabaa in laba kelimad aan dhaho. hal kelimad oo aan rabo inaan dhaho waalidiinta iyo maamulka iyo macallimiinta iskuulka iyo maamulkiisa iyo macallimiintiisa aad ay u mahadsan yihiin. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo. waxay soo saareen maanta arday qiimo badan oo isugu jira gabdho iyo wiilalba. waxayna u dhiseen si oo ruuxiyan ah ayay u dhiseen. waayo bani aadanka laba qaab loo dhisaa ama loo koriyaa. marna waxaa loo koriyaa jismiyan ayaa loo koriyaa, marna waxaa loo dhisaa ruuxiyana loo dhisaa. marka jismiga waxaa iska leh waalidka iska leh. wuxuu ka fikiraa cunuga wuxuu cuni lahaa, wuxuu cabi lahaa iyo wuxuu xiran lahaa ayuu ka fikirayaa. laakiin macallinka iyo maamulku waxay ka fikirayaan ayaga mar walba siday isay u dhisan lahaayeen ardaygaas. waxbarashadana laba qaab waaye, marka laba qayb waaye التربية والتعليم الله. منه وأقول منه وتربية. مركز إن شاء الله وحنفلا يا أردنا إن كسفوا ولا بداس أقول تنا لجاركو تربية وناكسنين ولا برينا لجاركو. مدك لو حنلاقي يا أردنا هالكلمة ده وعتقول بتين مرحلة وحدوسعت المرحلة كله وحبر شنو مرة ماطه مرحلة ده كلا أدوسعتين ama mid aad ka gudubtay mid aad u socoteen waxaad la kulmi doontaan dad kala duwan oo isugu jira dad kala nooc kala ah. marka waxaa laydinka rabaa tarbiyada laydan baray inaad ku sifowdaan oo meelahaas aad la tagtaan tarbiya wanaagsan iyo aqoontii iyo cilmigii iyo waxyaabay laydan baray inaad meesha la tagtaan. mahad celinta oo dhan haddaan soo koobno oo loo mahad celinayo macallimiinta iyo waalidiinta waxaa la rabaa in wixii lagu baray aad ku dhaqanto, aad ku sifowdo. intaas ayaa qodobka ku hadala. هذا هو ما سنتي